Soo ifbixii hogaamiyihii Islaamka ahaa ee Uganda kumuu ahaa Idi Amin, ma hogaamiye halyay ah oo bogagga dagaalada ku reebay taariikh lama ilaawaan ah iyo sheekooyin afkuhayn badan reebay buu ahaa mise kaligii talis macaanka ku maamulay mucaaradka dalkiisa cagta hoosteeda. Idi ma wuxuu ahaa hogaamiye Afrikaanimadu la sarreyso iskalana weyn gumaysiga caddaanka mise dabadhilif u adeega danaha reer galbeedka. Ku soo dhawow soo ifbixii hogaamiyihii Islaamka ahaa ee Uganda General Idi Amin Data. Idi Amin Data, abaanduulihii ugu sarreeyay xoogga militariga dalka Uganda ahaana madaxweynihii saddexaad ee dalka Uganda, ayaa dhashay sanadkii 1925 deegaanka Koboko ee waqooyiga dalka Uganda. 1946 Idi wuxuu ku biiray ciidankii gumaysigii ee boqortooyada Ingiriisiga. Idi ayaa kor u fantay sallaanka darajooyinka militari oo kala duwan, isagoo kama dambeyntii u dallacay darajada abaanduulaha koowaad ee ciidanka militariga Uganda. 1971 Idi ayaa isagoo ka faa'iideysanaya socdaal uu ku tagay madaxweynihii markaa ka arriminayay dalka Uganda Milton Obote dalka Singapore ku qabsaday dalka awood militari oo aan dhiig ku daadan. Isagoo isla markaaba isku magacaabay madaxweynaha dalka Uganda, Idi ayaa sheegay markuu xilka qabsaday inuu u dulqaadan waayay eexda qabyaaladda iyo cadaalad darrada madaxweynihii isaga ka horreeyay ee shacabka Uganda si dimuqraadi ah u doorteen Milton Obote. Idi wuxuu yidhi madaxweyne Milton wuxuu hubka dhigis ku sameeyay dhammaan qabiilada dalka Uganda marka laga reebo qabiilkiisa. Arrinkan waa cadaalad darro aanan la aqbali karin. Qabiilada oo dhan way siman yihiin, mana jiro qabiil ka fiican, waana qabyaalad iyo cadaalad darrada ta igu kaliftay inaan afgambiyo madaxweyne Milton xukunkana ku qabsado awood militari si aan isbeddel u keeno. Idi ayaa caddeeyay dalka Uganda inuu u baahan yahay isbeddel siyaasadeed, mid dhaqaale iyo mid bulsho oo degdeg ah, dalkiisana sida ugu dhaqsiyaha badan u beegsan doono jihada isbeddelka. Idi ayaa noqday hogaamiye ka mid ah hogaamiyeyaasha Afrika kuwa ugu saameynta badan, hogaamiye filimaan badan laga sameeyay, hogaamiye intiisa xun in badan la faafiyay, hogaamiye reer galbeedka iyo gumaysigooda dadban in badan u babac dhigay, badheedhna u diiday. Marshal Idi Amin Data, madaxweynihii saddexaad ee Uganda, ayaa ahaa hogaamiye aaminsan xorriyadda ikhtiyaarka ummadi u leedahay dalkeeda inuu yahay muqadas biyo kama dhibcaan ah. Dalalka shisheeye ayaa aaminsanaa Afrikaanka madow inuusan lahayn maskax uu kaga shaqaysto dalkiisa. Shirkadaha Yurubiyaanka iyo kuwa Aasiyaanka ayaa aaminsanaa Afrikaanta inay yihiin dad cunayaal ah oo keliya oo wixii loo soo dhoofiyo isticmaalo, lacagtan laga dhurto. Waxaa ka dhaadhacsanayd ninka madow inuu u baahan yahay markasta maskax u adeegta, lacagtana ka qaadata. Xitaa shirkadaha ajaanibta waxay Afrikaanta u diideen inay ka shaqaaleysiiyaan businesskooda oo waxay ku koobeen iyaga iyo qaraabadooda oo keliya. Sidaa awgeed, ajaanibta ku nool dalka Uganda ayaa inta ugu badan ganacsiga Uganda maamulayay. Haddaba, isu dheelitir la'aantan iyo cadaalad darrada ganacsi ayaa waxaa ka dhiidhiyay kana gilgishay isla markuu xilka la wareegay Generaal madaxweyne Idi Amin Data. Amin ayaa mowqifkiisa ku caddeeyay in Ugandhiisku u leeyihiin xuquuq lama taabtaan ah ee maamulidda dhaqaalaha dalkooda, cidnana marti uga noqon doonin. Generaal Idi ayaa caado u lahaa inuu cidna uga habran xuquuq uu leeyahay, ama ha lagu naco ama ha lagu jeclaadee. Wuxuu aaminsanaa xuquuqda dalkiisa iyo dadkiisa inuu cidna marti uga noqon karin. Agosto 1972 digreeto madaxweyne uu ku saxiixan yahay Idi Amin ayaa soo baxday, taasoo lagu farayo dhammaan ajaanibta Yurubiyaanka, Hindida, Bakistaaniga iyo dhammaan Eeshiyaanka joogay dalka Uganda ama ganacsi ha ku yeeshaan ama yaanay ku yeelanay inay haystaan muddo 3 bilood ah oo ay guud ahaanba kaga baxayaan dalka Uganda. Digreetada ayaa sidoo kale lagu xusay cid kasta oo iska dhaga tirta go'aanka inay wajihi karto cawaaqib xumo laga shallaayo. Amin ayaa ku magacaabay go'aanka xoreynta dhaqaalaha Uganda. Go'aankan ayaa Idi ku sheegay inuu yahay go'aanka loogu wareejinayo dhaqaalaha Uganda gacanta muwaadiniinta dalka Uganda. Idi ayaa ku andacooday inuu u dulqaadan kari waayay ajaanibta lisanaya dhaqaalaha Uganda sida caanaha xoolaha looga listo candhadooda.
Idi ayaa sheegay inuusan cabsi ka qabin si kastoo reer galbeedku uga jawaab celiyaan go'aankiisa. Uganda waa dal hodan ah, waxaana leenahay dhul qani ah oo gacanteena uga bixi karno cunaqabateyn kastoo nala saarana waxba nagama